بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن وناكسن داوديال idilkiin ba meel kasto aad naga daawanaysaan kusoo dhawaada waraysi gaar ah oo telefishanka qaranka Soomaaliyeed uu idinkaga qaadayo gudoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Soomaaliya ahna sidoo kale xubin ka tirsan baarlamaanada Carabta mudane Professor Maxamed Cumar Dalha mudane markuu kusoo dhawaado telefishanka qaranka Soomaaliyeed waxaan rabaa in aan dhowr arrimood waxyaabo ka weydiiyo tan koowaad guddigiinan arrimaha dibadda ee baarlamaanka Soomaaliya muxuu yahay muxuu qabtaa bal daawadaashu sharax bismillaahir rahmaanir rahiim horta guddigeena arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga wuxuu ka mid yahay guddiyada baarlamaanka ee u xil saaran inay la xisaabtamaan dabagalaan kormeeraan baahida shacbiga maadaama baarlamaanka uu yahay kan ku hadla magacooda had iyo jeer waxyaabaha iyaga ay go'aanayaan iyo sida markaa dawladda guud ahaan hay'adaheeda ka sokow haddana si gaar ah xukuumadda iyo baarlamaanka ay u wada shaqayn karaan ayadoo hadba wixii markaa loo baahan yahay arrimaha siyaasadda dhaqaalaha amniga bulshada iyo wixii soo raaca ay u yihiin kuwa mudnaanta leh oo had iyo jeerna baarlamaanka ajendayaashiisu ay ku qotomaan ama ha ka yimaadaano indisa sharciyeedyo oo xukuumadda markaasi oo iyada baarlamaanka soo hordhigta oo guddoonka soo gudbiyo ama shaqo markaa guddiyada iyaga ay si gaara mid waliba guddiga iyada markaa hawsha iyada ay khusayso oo markaa wasaaradii u baahan inay arrin iyada ama hawl wada shaqeynaa inay dhex marto inay iyadana sidaasi qaybteeda uga qaadato ayadoo marka baarlamaanka dhanba markaa shaqadiisii hadda kullayba ay tahay mar waliba midda mudnaanta leh uu ku xisaabtamayo guddiyada oo u ah gundhig shaqo kasta uu baarlamaanka qabanayo xildhibaan waayahay waan fahmay wax qabadka ee guddigan marka imisa xubnood ayuu ka kooban yahay guddigeena 20 xubnood ayuu ka kooban yahay oo u badan rag cadaayaal ah oo qaar hadda guddoomiyaal baarlamaan hadda مثلا waxaa noogu jira Shariif Xasan oo kale rag ra'iisul wasaare ku-xigeenka soo noqday oo مثلا mudane Xasan Abshir oo kale ayaa ku jira rag runtii muhiim ah qaar oo hore dawladda ama dawladaha maartay ka horeeyay kumeel gaarkii iyo tii xataa dawladdii dhexe ka soo shaqeeyay qaar diblomaasiyiin soo noqday oo safiiro heer gaaray kuwa shaqooyin culus soo qabtay way aragnimo siyaasadeed wax badan maartay leh iyo dhalinyaro aqoon-yahano ayaa intaba guddigan uu ka kooban yahay waxaana guddoomiye u ah mudane Cabdiqaadir Cali Cusuble oo dadku ay wada garanayaan marna murashax madaxweyne xilligii hadda ugu dambeeyay madaxweyne Xasan uu ku guuleystay ragii isa soo taagay kamid ahaa maartay hoggaanka dalka waayahay maadaama guddigiinan uu qaabilsan yahay arrimaha dibadda ma jirtaa marka waxyaabo aad ka qabateen dhinaca xiriirka dibadda ha noqoto xiriirka baarlamaanka Soomaaliya kala dhaxeeya baarlamaanada dibadda akiid ha runtii guddiga wax badan oo xiriiro ayuu sameeyay gaar ahaan marka loo eego ama dunida carabta ha noqoto ama ha noqoto dhinaca maartay dawladaha Yurub iyo maartay Afrika baarlamaanadooda kuwa ka tirsan wuxuu isku dayo far badan uu sameeyay inuu helo xog maartay waxa dadka Soomaaliyeed ee dhibaatada gaar ahaan kuwa South Africa loo geysanayo ama dhaca iyo maartay iyo xariga iyo maartay xadgudubka joogtada ah xuquuqda dadkaasi ay leeyihiin wuxuu kaloo u dhabagalay sidii Libya مثلا iyagana guddigooda arrimaha dibadda xiriir ay oo la sameyn lahaayeen iyagoo safaaradaha sidaas oo kale iyaga ay kala kaashadeen waliba guddiga arrimaha dibadda ee Libya ee baarlamaanka Carabta ugu jira in arintaasi xiriir laga sameeyay sidii loo soo deyn lahaa sidoo kale guddiga wuxuu kaloo maartay kulamo gooni ah uu la yeeshay safaaradaha dalka jooga oo مثلا safaaradda Turkiga oo kale ay kamid tahay Iran oo kale Suudaan oo kale midda ilaahay kuma samadiide maartay Libya oo kale laftirkeeda kuwa kale oo markaa u qorsheysan ayuu haddana barnaamijkiisa aanan marna maartay aanan ka marnayn sidaa iyo si lamid ah ayaa haddana contact mar waliba wuxuu leeyahay
jaaliyadaha Soomaaliyeed ee dibadda qaarkood oo xog badan ayaga uu ka qaato oo waxa ayaga ay ku sugan yihiin maadaama guddiga uu yahay howlaha uu hayo kaliya arrimaha dibadda maahana iskaashiga caalamiga misana jaaliyadaha Soomaaliyeed ee iyaga dibadaha ku nool guddiga inuu yahay howlaha isaga looga baahan yahay inuu xog maaragtay had iyo jeer oo buuxda inuu ka hayo kulana xisaabtamo marka wasaaradaha had iyo jeer wixii iyaga marka dhibaato ama duruufo oo ay go'aanayaan ama kuwa displaced ka noqdaan ama kuwa qaxootiyada ama kuwa marka laftirkooda kuwa soo xisabsiyada hadda dhibaatada ku haysato wadamo fara badan ay jiraan iyo ka wasaaradda arrimaha dibadda safaaradaheeda sida ay u shaqeynayaan sida ay howlgalayaan sida ayaga laftirkooda ay dhexdooda cadaalad حتى نظامكي أو قيب سجى ضد كصومالية إيجا يكون هشيان أهيد إن سيسمان بشرة صومالية وحلو قيبيو ما كترجمة يعني سفارتها لفتر كودا شغاله هذا يو كوي هذا بريهان دم إيجا له الجلي كوي هراء شغال لقى ساري وحيابها كتير جري كرو بدرام لقى يابط إنات ملها أتكلم مقاشان وحصل جودي الشغالي سايتاي وحوسي جوكتا خميس ولي بنا وأغشرا أريمها سي وحي كلا أمريكا صدنا دق أما طاري أهنا وحو يشاء فضي أنا عادي أهين أيوة مر ولي بنا جودي وذا شقين تأيل ليهن وزارة أريمها دي بدو أي تاي من دقادي أد وحوق بدن ومر ولي بنا أيهن كوا إسكاشي الله يحريرك سكية وذا شقين جارك أي تاي وزارة أريمها دي بدو إسكاشي عالمي وحجرت إن ضد كسومالي ذا قاركود أي دباتوين كقبان في سهل دلالك الدبادة جودي جينا أريمهاس مكهد لا أو حوجة مسارة. رونتي أريمهاس يعني أريمة كله وأنكر واجنا أيها جرتو لكن هذه حكومة حق هذا أريمها قاركود أيسن وحكر دقاقين ووح إيجا مركا لو بهاين حكومة أيضا أرين تاسي سؤال لجوي ديو أنا مثلا هذا وحنويا لو حيتاي ميسك دولة دني وحلي ودولة رسمي أهان أدون كلا loo aqoonsaday oo kumeelgaarkiina ay ka gudubtay safaarado iyo diblomaasiyiin fara badan adduunka oo ka tirsan ama Afrika ha noqoto ama Europe ha noqoto ama America ha noqoto ama Afrika ama Asia ama Australia waxa hadda dhagaha dadka Soomaalida ay ku soo dhacayaan ama mar waliba dawladda xataa laftirkeeda ee halbeegeeda uu yahay marka iyada ay ismuujinayso inay siyaasadii arrimaha dibadda inay xoogaysatay aqoonsigii inuu caalami noqday marka taa haddana ayadoo meesha ay taala anaga waxaa question mark noogu hor qoran haddii federaalkii ku meel gaarka shalay annaga aan ahayn xukuumaddii maanta ay tahay xukuumad rasmi ah dawladda dariska aan la nahay hadda maanta aan ku bixinay waraysiga maxaa keenay in ay viisaha dadka Soomaaliyeed aan u helin sida dawladaha kale ee meel kale intaan la gaarin ee Afrika aan bariga Afrika aan wada degannahay مثلا haddii maanta passport Djibouti aniga aan wato waxaan access u leeyahay in aan airport aan imaado $50 fiiga aan iska bixiyo la igu dhufto laakiin passportka Soomaaliyeed haddaanan aniga aanan haysanin ogolaansho geli maayo haddaan konton aad sheegaysa haddaan 100 aniga aan la soo baxo sidoo kale ninka passportka Uganda wato sidaas oo kale ayaa isla Jomo Kenyatta airport visa loogu dhufanaya waxa sidoo kale loo saarayaa ma aragtay Ethiopia ayaa loo saarayaa maxaa marka aniga haddaan bariga Afrika kaliya ee anaga dawladda Kenya ee anaga ay noo aqoonsan tahay dawlad rasmi inaan noqonay ee iskaashiga naga dhaxeeya ilaa heer ciidan qalabka sida ee Soomaaliya maanta u joogo Ethiopia passportka Soomaaliya visa waa lagu dhufanayaa Uganda waa lagu dhufanayaa أنا دبلوماتيك أنا وتهدي حتى لا يوغلادو استيكر بالله إسارة يا ما كرتي دولتها كلا يوروب نسكت دافع وري حاشي أيا اللي يدي بيا وبلجيم دا تكتب سفارة وحيكوسين إسا حاشي ما كرتي ولوسين ما يو فيزا أو إسلامركي دالكو قالوا أنت لقوق دجيو أو تيمبر هاير لقوق دفن ماي باسبورة ده ندم واحد بوحي استيكر كما أرتي أو نيروبي ومرك أنا عن سفرين وأنا هوري كذا لا مسيس عنه وده ما عرفت مصر والوقوق دفن يا يمن والوقوق دفن يا إمارات كسل وجود فن مايو وإنات أديك أرقصوا مرتا ودردر وكدبنا أقلان شاء تهشا قطر سيدو كله مركا أوي مركا وحبا ولي عن ميلها قاركود سيدا الله شيء جاي أنا أجرين مركا أريما صار محل الروائني دولد يدا أي أكور جشو أي ورعت دولد ده سوا كوا قنصناي يهدنا لنا عكرنا باسبور كاجا
aniga ima marayo ilaa aniga aan ka iraado dhalinyarada Soomaaliyeed maanta fursadihii waxbarasho dib baa ka haysta sababtoo hadduu maanta ardayga Soomaaliyeed waxbarasho uu ka helo ama wadan kasta ama qaaradda Afrika ka tirsan ama Yurub ka tirsan ama even Middle East haddii asay uu safrayo يعني سيدا وكمر وأذكتها أما فيزا وكهل وإنت ودب ومر you can't imagine هذو ترانسيت وسيهي يهدي حتى شركي محد للنيرة الصومالية التكورس على النيرة الصومالية من كل هدي مجا للنيرة الرجع يلبح حينه أي يكون تجعلما يعني أدونك أي مجا عاسي ما دماني للنيرة الصومالية أي سامين كودا يلتا وأرين ما أرتقبهن دولته إني كلا صارته حقوق دي للنيرة الصومالية وحبذن أيها واحد إن هجرة مركل الله فيري أما immigration مركل لي رادو حسيب مرانا مانت ول أيها والد كيس أكونوا لي حتى هدوته فيزا أيها واحد لقيها وإنه إيربورات لقى قبصة علشان ليه دلنيار الصومالي واي نمان كلا دلنيار الصوماليات ولو بحي مجعوا أي كنت قالمان وأدونك وبرمدو مارتي لو قري أي مجع سهيب وداعن يسي مركز سيدا محمد الدولة مركز أيضا لجودبان إنه كسر ما يسو أنا قد دلنيارة كوا بقول كيف سديتهم وحبرتها أرضية ودلنيارو كوا إذا ما ده الميليتري كتر سن بقول كيف سديتهم ما أنت ودلنيارو دلنيارة ده أنا أيها مجع شباب الله بحد كليه ميا دلنيارة دي صومالية ده رن إياها لو وده معرتي هريرين يا وح الله لو وحي أيها خصيين كست دلنيارة الصومالية هي أسجع إن علامات لجوه القرى نو هذا سديتهم إيشان هذه أتكوه سيسد you never get visa from our country because dhalinyarada tahay macnaheedu waxa way connection waxa lagu sameeynaya dhalinyarada ma aragtay problemka oo ayaga adduunyada farta iskugu goday la leeyahay Soomaalida ma aragtay niman dhalinyaro oo nidaamkaasi ma aragtay terrorka ku caanbaxay ay leeyihiin marka waxaasi oo dhan waxyaabaha anaga aan gudiga arrimaha dibadda oo aan doonayn inay dawladdu ayada miiska soo saarto maxaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan tuka cambaar la ka dhigay marka ninki dambiile asaale adduunka xildhibaan marka ajendayaasha hadda ka hadlayso oo ah in dhibaatooyinkaas ay jiraan madaxda sare ee dawladda ma u gudbisan si ay wax uga qabtaan madaxda sare annaga wixii even marka annaga as a document inta annaga aan u gudbino oo iyaga wax ka qabad ay waayaan annaga hadda waxaan door bidnaa inaan media maarta aan baarno sababtoo ah danta nagu kalifayso shacbiga Soomaaliyeed wayna la xisaabtamayaan baarlamaanka wuxuu wakiil ka yahay shacbigii maxaad inoo qabateen kelimadaadina hadana shacbiga aanan maqlin hiil ay u noqon lahayd hadana qoraalkaagiina aanan meeshii ayada ku haboonin inaan gaarin almiino wixii obstacles ay jira say ummadda Soomaaliyeed oo marxaati ka aan caalamka ku kala warqaataa ma gartay media in annaga aan reportkeena ama waxa aan barbooskeena u yahay in adduunyada dhan dhag iyo far ma gartay inay gaarto ayaa hatta waxa anaga go'aan haddii aan aragno South Africa dhibaatada ay ka socoto inaan dawladda aan ula sugin inaan shir jiraa'id aan qaban oo gudiga arrimaha dibadda falkaas aan ku cambaarayno kuwa dadkeena beeraha ku falanayo ee Tanzania inaan ku simi weyno haddii wasaaradda arrimaha dibadda iyo safaaradda meesha joogta aan weyno inaan anaga aan abiilkeena anaga aan maartay isla markaa on the spot aan ka dhigno haday Libya ay tahay haddii even dad Soomaaliyeed inta ay shaqeystaan xuquuqdooda la leeyahay iska taga inta la soo tarxiilo ma gartay oo aan gadaal loogu noqonin gabdha Soomaaliyeed waxaan ognahay niman ajnabi qabay ee bariga dhexe ee maanta wadan hebel hadda kulli way gaari doontaa goor aan iraado intii ninkii uu geeriyooday dhaqaalo lahaa gabadha inta xabsi lagu cabeeyay waxa la intay dhaxli lahayd bahashan madow ee Afrika ah annaga caruurta aan ka wadano iyadan aan xidhno gabadhii maanta waxay xabsiyada qaar ka mid ah wadamada khaliijka mid ka mid ah haddana arinta wax laga qabanay ayadoo balbalaaran ma soo saari doona iyo dawladda ay tahay gabadhaas xabsi bay ku jirtaa waxaana laga sii qaatay caruurteedii ayadoo la hortaagan yahay kaliya dhaxalkaasi reerkaasi oo ay u dhalatay maartay ninka carabta ay u dhaxday iyo caruurtana ay u dhashay inay wax ku yeeshaan marka waxyaabo fara badan baa jiro laakiin waxa inta fara badan laga sugayay inay tahay inay keenaan safaaradaha hadda ma sameeyaan nin walba sidoo ku tagay baan ognahay qaabku ku joogay in yar mooyaan marka laga sheego inta kale waxa waa wax shacbiga toos nooga yimaad ama jaaliyadaha xiriirkaas nala soo sameeyo marka arrimahaas oo dhan iyo kuwa siyaasad kulugle iyo kuwa bulsho kule kuwa amni ku shaqale iyo kuwa ma aragtay waxbarasho ku shaqale intaba way jiraan loo baahan yahay in ma aragtay wax laga qabto aan gartay maalmo dhaweyd waxaa jirtay in guddoonka sare ee baarlamaanka Soomaaliya uu sheegay in loo baahan yahay xildhibaanada ku maqan dalka dibadiisa inay muddo kooban ku soo xoroodaan qorshahaas sidoo ku soo ragal karaa maadaama xildhibaano badan ay dalka dibadiisa ku maqan yihiin oo qaarkood dana gaar ah ay u maqan yihiin qaarkoodna howlo shaqo ay u maqan yihiin xildhibaanku waxa
bulshada Soomaaliyeed looga soo dhaxwalay dadkiisana ay u yiraahdeen kursigaasi noo matal inuu ugu adeego guud ahaan horta marka ugu horeyso ummadda Soomaaliyeed oo wakiilka uu kaga yahay maalintii reerkiisa ay keeneen wixii ka dambeeyay mas'uuliyadaasi ay dusha asaga ay ka saaran tahay tan kale xataa in ma artay nin walaalkii ah ee Soomaaliyeed laga yaabo inuu cilmi iyo aqoon iyo aqli midna uusan dhaamin laakiin isaga calafka uu galay inuu asaga kursiga u buuxiyo inuu haddana booskii isaga inuu ku qoran yahay haddana tii qaran iyo tii reereed ee isaga uu matalay labadaba inuu meesha u gabo horta waa sharci ahaan annaga wax ninkaasi uu baarlamaan uu ku dhex jiro ama uu ku dhex fadhin karo oo qiil ama wajirtaba xilbaanadu iskuma jiraan xilbaano shaqo dibadda u aada ee shirar caalami ah iyo kuwa ama ma aragtay ee dawladaha gobolka ah ee iyaga wakiilo ayuu u ah dawladdu iyada ay ku ogtahay ama baarlamaanku oo ka qayb gala ayaa jira hawshoodaasi waxa la yiraahdaa xilbaano shaqo ku maqan kii xanuunsan isagana la og yahayna waa wax gudoonka uu ku og yahay baarlamaankana xog ogaal ay u yihiin inuu xildhibaan hebel uu ku xanuunsan yahay marka xildhibaanada marka sidaas ay iskaga warhayaan laakiin in xildhibaano inta iska baxaan danahooda ay raacdaan xildhibaano kalena ay har iyo habeen ayaga ay u joogaan ama ayagoo u dhimanaya qaarkood xildhibaano hadda maanta bari dhaweyd xildhibaan aad qaali u ah ayaa xamar lagu dilay oo Xuseen ma artay aan wada naqaano oo soo wada shaqeynay ilaa carta hadda xildhibaankaasi iyo ninka iska ma artay intuu baxo Scandinavianka ya halkaasi marba ma artay 5 jeer ma artay intuu iska taga asaga danihiisa gaarka ah markuu uu raban uu yimaado uu soo fariisto ama dalka gudihiisa isagoo joogo haddana aan baarlamaanka xataa aanan iman yani waa arin ma artay oo ayda arintaasi sharciga badiidayo intaan gudoonka la gaarin haddii xataa loo seeta dheereeyay waxay ahayd arin khaldan oo markii hore in la qabto ninkaasi uu ahaa maxaa yeelay xeerka wuxuu leeyahay hadduu xildhibaanka halkal fadhi uu maqnaado ee uu soo fariisan waayo wax sababana aanan jirin in xilka uu barneeyo ninkii hawshaasi qaban kara ee wadanka ka istaahila inuu u shaqeeyo bulshada asaga uu matalayana booskaasi uu u matalo in meesha uu soo fariisto marka gudoonka waa wax mas'uuliyadiisa ay ka mid tahay maxaa yeelay ayaga ay dhaawacaysa haddii xildhibaan shaqadiisii gudanayo ee wadankii gudihiisa dhib iyo rafaad iyo wax waliba uu kula kulmayo iyo kuwa ma artay inay iska fariistaan ayagana meelihii oo ayaga markaasi awalba siday uga yimaadeen ilaahay ogaa haddana aanan waxba oo natiijo aanan ugu maqnin dalka iyo dadka waa wax oo iyadana beri laftirkooda gudoonka su-aashaasi ay uga imaan karto dhaliil marka dee gudoomiyaha waa wixii isaga xaq u lahaa awood u lahaa ayuu ku dhawaaqay waxaana loo baahan yahay in loo hoggaansamo ninkii u hoggaansami waa inaad waa nin isaga markaa u bareeray in markaa xilka sidii sharciga u qabay in la waafajiyo uu hayo xildhibaan dalxa waxaad soo hadal qaaday in mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya dhawaan lagu dilay magaalada Muqdisho gaaran xaafadda Bulxube dilka xildhibaankaasi xildhibaanadiinan kale hadda shaqeeya maxaa saameyn wadin ku yeeshay wallahi annaga waxa waaye waxa ugu nuguma aha annaga tan iyo Baydhabo bariga annaga aan joognay xildhibaan la dilo mudan Cabdalla Deero Isaaq baa noogu horeeyay maantana marka dilka la soo qaado xildhibaano malaha 15 16 kor way u dhaafayaan wax la dhaawacay kuwa xataa curadkoodii la dilay dhaca iyo boobka iyo mushkiladaha ayaga kale ee la sii kulmeen Baydhabo kaliya waxa waaye hal xildhibaan oo kala baxay xataa dhacash ma jirin barigii dib u heshiisinta anaga Djibouti aan waadi jirnay duruufahaasi kulli ayagoo u bareeray haddana ay diyaar u yihiin haddana inay hawshooda ay sii wataan midda kaliya aan la ciilka ambirin ayaa waxay tahay hal nin oo maxkamad loo soo taagay weli ma jirto waxa suxufiyiintiina idinka aad ka cabanaysaan oo aad leedahay intaasoo suxufi ayaa la dilay intaasaa la dhaawacay maxaa ma artay hal ma artay aan u weynay suxufi hebel la dilay bari dhaweyd unbaa hadda hal mar qof ma artay jiray Allah yarxamhu oo ma artay hal wariye ayaa la isu sheegay oo dhan la yiri waa wariyii ugu horeeyay weli ma hayno har cadba Cabdalla Deero lagu dilay Baydhabo asoo khudbo masaajid ka soo baxay ninkii dilayna uu iska dhaqaaqay sidaa iyo si lamid ah Xuseen Cabdisalaam baa ugu dambeeyay jaamacadu ka yimid Allah yarxamhu asaga yaragii isla socdana asaa soo dagay isagii baa ma artay arintii operationka lagu fuliyay har cad baa ay ahayd qarsoodi ma ahayn meel oo luuq iyo mugdi iyo ma aysan ahayn
weli waa la isweydiinayaa inkastoo dad baa loo qabtay la leeyahay laakiin hadday wax saameyn ugu yeelanayso waxa waaye wax way dhacayaan oo xaaladda waddanka aan ku galnay hawsha iyo sida aan ugu bareernay ayaaba iyada taa annaga marka hore wax waliba maaragtay falaadhi cirka loo gamay iska nin walba filo xoogga dalka Soomaaliyeed booliska Soomaaliyeed nabad sugidda Soomaaliyeed ilaa kan asluubta ilaa kan maxkamadda mushaharkooda waxa ansaxiyo miisaaniyadda haddii lagu yareeyana ka qayliya hadday xuquuqdooda maqan tahayna diida sida bari dhaweydoo kaleba ay sameeyeen oo tir laba jeer ay garab istaageen inay ayaga maanta fuliyaan waa baarlamaankii haddana waxaa laga yaabaa sidaan kugu lisay igu maadan hambayn inay haysato amnigooda oo aan badanaaba iyaga inta lagu mashquulsan yahay wasiirada iyo inta lagu mashquulsan yahay madaxda kale ee tirada badan ee xaddaafka ciidanka maarta loo sameeyay umaleyn maayo xataa baarlamaanka xataa maarta xindaabkiisa in laga heli karo marka waa arrin u baahan sidii arrintaasi iyada laftirkeeda ayadoo mas'uuliyadaasi dadka iyo dhibka iyo rafaadkaba inaan la wadaagno waajib wax nagu maartay haddana mas'uuliyadaasi ayaa haddayba saameyn nagu yeelatay ayadoona saaran oo intaasoo indho iyo intaasoo maartay dhego had iyo jeer maqalkooda ay ku badan yihiin xildhibaanada haddana waxaan u malaynayaa inaysan badi xildhibaanada boqolkiiba 80 la dhihi karo inay bulshada caadiga waxba aysan ka duwanayn ama hodheelo ha deganaadaano ama guriga caadi ha deganaadaano xilligan la joogo xiriirka ka dhaxeeya guddoonka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyo xildhibaanada baarlamaanka oo aad adigu xubin ka tahay inkastoo ay gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka tahay gaaraan arrimaha dibadda xiriirka ka dhaxeeya waa sidee xilligan wallahi hadda baarlamaanka iyo guddoonka wada shaqeyn ilaa xaddin ma oo wanaagsan ayaa ka dhaxaysa markii ajenda baarlamaanka uu ka doodayana waxa guddoonka uu asaga waajib ahaan xaq uu leeyahay way ku ixtiraamaan xildhibaanadu guddoomiyaha markaasi ama shir guddoonka ayagana sidoo kale ay xildhibaanku ay siiyaan mudnaantiisa iyo qadarintiisa oo waxa waajib ahaan ee uu xeer hoosaadka uu qorayo xildhibaanka maartay xaq uu leeyahay shir guddoonku had iyo jeer ayaga waxay leeyihiin go'aanka ay gaaraan xildhibaanadu inay jeediyaan oo yiraahdaan maanta kalfadhigii saasi waxa soo xaadiray inta soo xildhibaan haddii markaasi kadibna ay dhacdo maartay codayn kadib markii ajendahaasi laga dooday waxa go'aan maartay lagu gaaray in mowduuc asaas ama ajendaha kaas in ay maartay baarlamaanka uu meel mariyo asagoo cod aqlabiyad intaasi intii fadhiday markaasi kooramka uu sheegayo iyo intii markaasi diiday iyo intii ka aamustay waajibaadkiisa asigu waa intaas laakiin decision maker kan wax diidayo ama wax ogolaanayo waa xildhibaanku sidaasaana maartay xildhibaanadu waxay xor ay ugu yihiin codkooda nin walba ra'yigiisa iyo fikirkiisa asigoonan ka baxaynin mawduuca iyo sharciga waxa markaasi asigu uu ogol yahay inuu wax diidi karo waxna ogolaan karo kamana aamusi karo duu doono mudane maalmo dhaweyd waxaa jirtay in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ay aadeen ama howlo shaqo u aadeen gobolada dalka Soomaaliya gobolada ay xildhibaanadu waa kuwa safarkaasna muxuu ku saabsanaa runtii hawsha baarlamaanka inta fara badan hadda uu ku faano markii loo fiiriyo bari hore waxa la dhigi jiray xildhibaan meeshii asiga xataa uu ka soo jeedo uusan tagi karin muxuu xildhibaan ka yahay maanta laakiin alxamdulillah xildhibaano ilaa iyo xuduudaha ama luuq ama cabudwaaq ama Kismaayo ama gobolada dhexe maartay ama Puntland yani meel aan muddo lagu xisaabtami jirin ama shabeellooyinka ama Hiiraan tagay ayaa jiro kuwa oo iyaga u hanweynaa laftirkooda inay tagaan oo weli ay wax u salugsan yihiin oo laftirkooda aanan sidii marka iyaga laftirkooda hawshaasi iyagana laftirkooda ay u doonayeen aanan dhinaca maamulka xaqiisa aanan ugu meel marin way jiraan oo sida مثلا gobolka Shabeellaha Hoose oo kale oo in muddo wax ka jirjiray laakiin xildhibaanada ka soo jeedo boqolkiiba 80 oo weli u hanweyn inay tagaan deegaamadoodii weli uma ayna suurtagelin haddii Allahuma ay jiraan xildhibaano oo hadda aan badnayn ayaa laga yaabaa ama inay marka ama ay tageen ama afgooyo oo hadda aniga sidoo kale iyo xildhibaano kale saaxiibaday ahaa oo aan maalin
annaga intaan isxilqaanay oo aan ku gaarnay oo aan nidhi intaan ka badan waqti ma siin karno oo inta nala soo diyaariyo oo ama barnaamij aan ku wada dhaqaaqno oo nala siiyo fursad inaan gobolada aan ku gaarno oo weliba shabeellaha hoose ee caasimada hoosta kaga jirto taana laftirkeeda ayadoo aan rajaynayno in waqti dhow arrintaasi wax laga qabto maamul fiican xataa weli aanan ka jirin oo hadda dadkeediina isqabqabsi badan iyo haddana weliba loolan oo xoog leh haddana ka dul socdo oo dhismaha ma artay استيديادان oo hadda sida jantarugan u socdo ayagana gobolka uu noqday laftirkiisa in noqdo gobol baarta lagu hardamo oo hadba qolo ay tiraado anigu gobolkan naga tirsan yahay oo horeyna anta u sheegay oo مثلا بنادر با هذا قرشة وحاسعود ولا ليه هي بنادر استيت بلا دسيا وشوالله هو سوكمد هي ساوث ويست كونفور بري بارتقال بيت با أيضا نظام كسعودو أيضا سلاس أضيال أي أفريان أريد شوالله هو أيضا أيكو حساب تميان ولا كلو أدب لاند أيضا وضعت أي جرتو أيضا إنع يجبو لحقي أيضا برنامج أيضا ربان إني شوالله هو أيضا يكولين وأنا ونقتر سهي قال أيضا إنع يجوهر هالكا أيضا وبيجا ما أرتي الراعي أيضا جيم وبيلاند أنا ليجرا dhahayo oo ayagana budadooda gaar ugu tuman tahay ayagana way socdaan marka bari dhoweydina iraad shawalahaas ma suuga isagu qolo waliba ay doonayso inay bahasho ya iska dhex dhigato cajeerada marka si kastaba ha ahaato laakiin shabeellaha hoose wuxuu sugayaa nidaam iyo maamul dadka ku noolna waa dad iyaga is ogol haddii aanan lala imaanin waxa had iyo jeer dadka Soomaaliyeed kala fogeeya ama keeni kara inay ma artay gorada isla galaan arintan shabeellaha hoose mudan intaanan ka gudbin waxa jirtay dhawaanahan in halkaas ay ka dhacayeen dagaal beeleedyo laba beel halkaas oo degan ku dagaalameen arimahaas ma la xaliyay xageesa ku dambeeyeen xalku waa sida hadda shabeellaha hoose horta shabeellaha hoose gobolada Soomaaliyeed xadaarad ahaan iyo taariikh ahaan kuwa ugu facaweyn البحنمانة مركل الله فيري أنتي للدون اللي جهلي كارو عادوين يتقمص وجرينا وش سوماليات أو سيابك كالدون إيجا مركاسي نقول وذاك أما درس يدقان وذاك ونقضينا وحي هاي الولي جدا من آنن يعني قبل هذا كله ترتمي كريم ما أنت نيجي شباب الله هوسو تاجو شباب الله هوس دتكاسي كما وصل صار نحب حجرين وحلو أركي جري إنه يهاي نندقامت وأنا أنت فرضاً قبيلك حتى وأيها مركب في ريسيت إن الشيعان حتى أي كواضح شلون جرين ولقيا بيني حتى إن استعمك على أي وحيابك على عرفي أيها أي سماستين هذا مثلاً دك ما تقول وين هذا السوق كسوق هذا مثلاً تذكر دقنا حالي عشان تعالى موت يا عشان تعالى موت شن قبيله كلا دوام واي وحلقة بيش اللقى يعني حشودي إن اللي يرادو قبيل هبل قبيل هبل قبيل هبل قبيل هبل قبيل هبل هذه سوامالي ده ما أنت عن يعني اللي تعرفوه إلى يرسل أي تايم وشكل مثلاً شنتا وحلو لجي ده مثلاً قبيل كيرها دافيد ده قبيل كم ده هوبر هيف مج بربار يجنبلول شنتا عشان على مود ليسكير هذا لا تكاسب حيك حشودي إن اللي يرادو شن قبيل عن هاي إن يرادا شن على مود بارد ده ولا لا اسمه جرى شنتا سي أي كوسه وضع دجناين أفقوي شن جنبر بيلا بحن مقرت براوي مرقد أنت سو جماسيو مقرت يا درس ديت جماس مارتي أنت سو جماس حتى مرقد في رصيد لو كان باي بقول سيديت يسقال يا دماغ ليس كان هرت دتك وحي عند إسكا قبيل يشكل ديس وحى عصبية وحويراته حتى وحى لا يبان نينك كله ولا كي ماذا قبل هذا كله أما ميل كله إن لو جعله يسود دويت إسلام ركي حيرك يضدك إنه لو ذاقو حتى إسقال يراد وجاسكي بعد نوع تايم كده إلى إنه جارب أيها وحياه فربنا وحساسية وأبورن حتى أنا ضدك شعبي عادي رك سياسيين ويضد أو ما أعرف تسد برسينو يضد أو جدوين جرعان ضدك مركاسي إسكاجا هركيني أي أذيك سدين انتبه يحل وحيبا وحي رابن وحيابا ضدكي كلا صارت يكلا قبض حتى كوي إسلام ولا يا أيها مر ولي حتى إسكو ما أعرفي أما جنبر كسل جلي جري أما علامات كسل جلي جري يا أما جماس كسل جلي جري يا أيها حتى لفتر كودي أيها لكلا جديي أو ما أعرفي وحلو كلا صاري وجيه كلا دوان وحنا وحسمينا إلا أي هذا ندب تاجن وأن رجع السياسة ده أيها هربودية الدم ولي بأي يكو جاري كران همك أي سياسة ده يكلين أي أمران تبي حالة يقال يوحي أي هلي كران مركا شو الله هوسه مركا حد رنتي وجهي
iyada ay lahayd iyo dhaqankii iyo curfigii iyo dadkii sida ayaga isku ahaayeen si maartay ka duwan ayaad moodaa in loo sharanshoorinayo arrimaheeda taana kollaybo waxgaradkeeda iyo waxay u taalaa bulshadeeda iyo haweenkeeda iyo dhalinyaradeeda iyo odayaasheeda dhaqanka ee riglaha ah ma gartay iyaga kollaybo is af yaqaana isna dhaqan yaqaana isna sheeko yaqaana ugu dambeyn xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ama baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya hadda shaqeeya muddo sanad ayuu jiraa sanadkaas maxaa u qabsoomay maxaa u qorshaysanay qabsoomay arrintii baarlamaanka waa dadaalay intii karaankiisa oo howl asaga laga rabay inuu qabto xukuumadda haddii ay hal la xisaabtamo la yiraahdana way la xisaabtameen intii karaankooda oo gudiyada ayaga loo marayo haddii wasiir ama ilaa prime minister meesha ugu sareeya xukuumadda ninka madaxa waa baarlamaan waa u yeeray su'aalo wixii marka uu arkayo oo danta ummadda iyo tan dawladda iyo tan qarankaba loo leesdii karo waxba ma artay in laga su'aalo uu mudan yahay ama prime minister ama wasiirkaasi wasaaradda kasta mas'uulaha ka noqdo way maartay sameeyeen wax qaraaro oo u cuntami kara oo ay u ansixiyeen way jirtaa xukuumadda wax uu cuntami waayo yiraahdeen wax dana shacbiga Soomaaliyeed uu ugu fadhiyo ma jiro oo ay cross ay saareen way jirtaa sidaas ayaa mar waliba baarlamaanka uu ku soo shaqeynayay badii Soomaaliyeed isku day fara badan ee laga sameeyay meeshii ka istaagay mowqifkooda xildhibaanadii hore kuwa dambaba waa arrin yani taariikhi ah oo la isla og yahay haddii kale maanta badeena meel kale ayaa maanta ay ka bitaaci lahayd khayraadkeedana maarta meel cidla ayuu maanta uu ku sii socday awalba marka waxyaabo fara badan xukuumaddu iyo baarlamaanka oo wada socda oo isla wada qabteenna way jiraan oo labada amaan ay ku madan yihiin marka wada shaqayntoodina ilaa hadda way fiican tahay oo waxyaabaha maanta baarlamaankan uu uga fiican yahay la isdhihi karo ama xukuumaddanba la dhihi karo ama madaxtooyada la isdhihi karo wada shaqaynta ama xataa haddii ay jiraan mugdi xataa oo waxooda gacmo geel jir hoos baa loo dhaqayaa oo ayaga arrimahooda badi oo ayaga ay arrintaasi ay ku sameeyaan halka markii hore la iska qabsan jiray oo maalin walba ma artay ay dhici jirtay ama madaxweyne iyo baarlamaan is haysta guddoonkiisa ama guddoomiyihiisa ama prime minister iyo is haysta madaxweyne oo arrintaasi wax badan ay noqotay wax xagal daaciyay wax badan ay qaban lahaayeen xataa xukuumadii hore ama baarlamaankii soo jiray daawadayaal intaas waxaa inoogu dhan waraysiga gaarka ahaa ee aynu la yeelanaynay gudoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ahna xubin ka tirsan baarlamaanada carabta mudane professor Maxamed Cumar Dalxa daawadayaal waraysiga waxaa idin qaadaya anigoo ah Cumar Caaqil farsamada iyo doobista wuxuu ahaa Mukhtaar Axmed Big Boss aad wada maasantahay caaqil adiga Big Boss waa in mahad celinaya iyo TV-ga qaranka thank you kulanti dambe nabadgelyo